xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay shir ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka ku ah dawladda dhexe ee Soomaaliya. wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay magaalada Paardheer ayaa sheegay in Soomaaliya ay leeyihiin Soomaali ayna ka shaqeynayaan Soomaali una fikirayaan dad Soomaali ah. sidoo kale wasiir Goodax Barre oo soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada oo tagaya Nairobi isla markaana shir ku yeelanaya magaaladaasi ayaa waxa uu tilmaamay in dawlad ahaan ay dhibaato ku tahay isagoo arintaasi walaac xoogan ka muujiyay. waana dhibaysaa markaan aragna maamul goboleedyada ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meel ku shiraan ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaadqaadayna ma aha iyagaas laftirkooda maraa caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan 100 meelo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa uun qaab darraas aan shakhsiyan isleeyahay waddankan Soomaaliyana ka shaqeynaa Soomaaliyana u adeegaysa Soomaaliyana u fikiraysa wixii intaas ka baxsan waa inaan cagayna wax ku doonana dhibaato waan la socotaan siyaasaddu marba meel ay aadaysa hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhuulduwaasho walaalaheen xaggay garuun ku dhuftaan xaggay bur ku dhuftaan xaggay dhagax ka tuuraan annagoo aamusnaantaas ayaan door bidnay taasaanan wadeennaa maxaa yeelay haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaa ay qaboobaan ay degaan waa inaa walaalkaa u miirisaa annaga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa dawlad ahaan. dawladda Kenya ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay qaaday tillaabooyin ka dhan ah dawladda Soomaaliya balse jawaabaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixiso ay aad u koobnaa iyadoona inta badan xilligan la sheego dawladda Kenya inay xaglinayso dhanka mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada.